29 sano ee la soo dhaafay ayaa ninkan oo lagu magacaabo Mani Tan oo u dhashay dalka Hindiya waxa uu sameeyay arrin la yaab leh taas oo ah inuu gadaal u socdo. Arrintan wuxuu u bilaabay sanadii 1989kii markaas uu dalka Hindiya ay ka jireen xaalada nacayb oo baahay. Waxa uu sheegay si uu amnigiisa u ilaaliyo inuu arrintan u sameeyay. Waxa uu sheegay hadda inuusan awoodin inuu hore u socdo la qabsi uu la sameeyay gadaal u socodka awgiis. Mani Tan wuxuu hadda ku nool yahay tuulada Akraharam ee gobolka Tamil Nadu. Waxa uuna ka shaqeeyaa xarun lagu iibiyo taleefanada gacanta. Waxa uu sheegay inuu jibiyay dhammaan rikoorradii u yaallay dadka gadaal u socda. Wuxuu yiri markii aan arrintan bilaabayay 300 oo kiiloomitir ayaan gadaal u socon jiray, waxaana ka bixi jiray tuulada, waxaana gaari jiray magaalada Chennai. Laakiin arrintaas ma uusan joogteynin. Laakiin hadda waxa uu sheegay in uu sidan u socon doono ilaa iyo dunida ay ka noqoto nabad. Ninkan wuxuu awoodaa in uu meel kasta gadaal ugu socdo, haddii uu gaari fuulayo, haddii uu jaranjar fuulayo, ma kala jeclo. waxaana la yaab leh in uusan muddooyinkan ama sanadadan dambe wax dhibaato ah kala kulmin gadaal u socodka. Waxa uuna yiri wax cabsi ah kama qabo in dhibaato iga soo gaarto dib u socodkan.